فاكتبنا مع الشاهدين. hadday dhageystaan baa rabbi yidhi wixii nebiga lagu soo dejiyey waxaad arkaysaa indhahoodoo ilmadu dareeraysa xaqa ay garteen daraaddeed iyagoo le rabbo waa ku rumaynay ee nagu dar oo nagu qor inta shaahidiinta ah. allahu nazala axsana alxadiidi kitaaban mutashaabiha مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. رب قرآنك وحين قلت المام يا مركه inta fahamta dhaqankeedu siduu noqdo haddii quraanka aad u fiirsato ku tadabburto macnihiisu uu ku dhaco natiijadani waa laabud in la gaadha inaad ilmaysaa waa laabud in jirku ku dubaaxiya waa laabud in ilaahay dikrigiisa qalbigaagu ku xasila waa laabud inaad rabbi ka cabsootaa waa laabud iimaan inuu kuu kordha waa qasab rabbi inaad tala saarato kalsooni isaga ku qabto makhluuq oo dhan aad ka tagtaa waa wax waa quraanka waxa ku cad waa aasaarta ka ratibanta dib baynu ugu noqonee marka tadabburku yimaado. nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wassalaam waxaa quraanka mid u fiirfiirsada oo ku tadabbura salaadaha markuu tukanayo dadka markuu tukinayo kuma dheerayn jirin ee wuxuu ina amray dadka mid baahan iyo mid dan leh iyo mid degdegaya iyo mid caafimaad ka xun yahay baa ku jiree ka ugu daciifsan sidiisa u tukiya laakiin markuu isagu tukanayo quraanka wuu dhadhamin jiray markuu isagu tukanayo quraanku quraan kale aha inaga waa cagsiga inaga waxa laga yaabaa faradkeenu inuu yara dhaadheeraado laakiin sunnayaashu waa dhakaw inta badan dadku sunnaha faatixada ayuu ku dhameeyaa dadka badhna hadday qulu wallah ku dari karaan qul huwa allahi raaciyan inaga keen waa ka ama nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xudayfata bnu lyamaan baa wuxuu leeyahay nebigoo tukanaya calayhi salaatu wasalaam baan habeen iskaga xidhay nebigu cid uguma talagelin inuu tukiyo isaga iska tukanayey waan ku xidhay buu yidhi dabeetana suurat albaqara buu bilaabay oo uu si degan u akhrinayo markaasaan sidhi buu yidhi 100 aayadood meelaha markuu gaadhu malaa dee rukuuci doonaa waa iska waday buu yidhi mala ragcaddu ku dhammayn doonaa baan idhi buu yidhi baqara 286 aayadoodba madaxuu ka jaray dabeetana suuratu nisaa buu iska bilaabay haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iska waday waa dhammeeyey haddana dib buu soo noqdo suuratu ali cimraan buu bilaabay waxay culammadu yidhaahdaan qiraa'ada quraanka la akhrinayaa sharti maaha inay isku xigto saa daraaddeed waa la kala horraysiin karaa intaad baqara akhrido ayaad birabbinaas ku xigsiin kartaa haddana dib u noqon kartaa mushkilad maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu akhriyey baqara ayuu nisaa akhriyey haddana dib u soo noqday oo akhriyey maxay ali cimraan akhriyey yaqra' mutarasila buu leeyahy wuxuu akhrinaya isagoo maxay aayar akhrinaya weliba buu leeyahay hadduu aayad tasbiixa soo maro wuu tasbiixsan jiray yacnii qur-aanka dhammee kama ahayn innaga haddaynu ramadaanta xataa waxoogaa yaro dheeraynana waxaa la eegayaa suuradda halka u dambaysa aayadda talo goormuu gaadhayaa maqradii xaggay ku taallaabaad isweydiinaysa laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam maqradaa kuma degdegaynine wuxuu akhrinayay maxay mutarasil isagoo ah isagoo qur-aanka uu akhrinayo fahmayo la dhaqmaya markuu aayad tasbiixa soo maro waa iska tasbiixsanayay markuu aayad su'aala soo maro ilaahay buu weydiisanayay markuu aayad cadaab iyo wax laga cawduka bilayso sheegaysa soo maro ilaahay buu subxaanahu wa tacaala ka magan gelayay yacni qur-aankuu dhadhansanayo la dhaqmayay waa markuu isagu akhrinayo haddii lagu dul akhrinayana saasuu u dhegaysan jiray waa kii ibnu mascuud igu akhri quraanka markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisa isagoo adiga kugu soo degaan adiga kugu akhriya inaan cid kale ka dhegaystaan jeclay igu akhri buu yidhi wuu ku akhriyey ilaa iyo suuratu nisaa uu soo gaadhay fakayfa idaa ji'naa min kulli ummatin bishahiid waji'naa bika calaa haaulaa'i shahiida xasbuk buu igu yidhi markaasaan arkay buu yidhi nebigiioo ilmadu ka dareerayso
waxaad ka garan kartaa qur-aanka siduu ugu tadabburayay habeenada qaar buu hal aayada nebi maxamed ku soo jeeday haddaynu nidhi markan wuxuu akhriyay ali cimraan iyo nisaa iyo albaqara habeenada qaarkood buu ku soo jeeday aayad qura uu ku celceliyo in tucadibhum fa innahum cibaaduk wain takfir lahum isagoo intaa akhrinaya ayuu habeen dhan ku soo jeeday akhrinaya waxaa la mida habeenkay ku soo degaysay ina fii khalqi الsamaawaati wاlardi waاkhtilaafi اlleyli wالnahaari laaayaati liuli اlalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqcuuda wcalى junuubihim ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آيات كريمة النبي محمد كسو دغين إلهي إلهي خلقك الله وحن كركينا كموقد السمضة dhulka habeen iyo maalinta iyo iska gadigooda aayada rabbi lagu gartaa ugu sugan yahay kuwa aqliga laba ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa aqliga heli waa kuwe aqligu de haduu naar ka kaxayn waayo rabbigana ku garadsiin waayo hadda waxba ma aha aqligaasi aqli jira ma aha sida ogeed ba ilaahay kuwa aqliga la wuxuu ku sheegay alladina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa kuwa ilaahay xusa haday taagan yiin iyo iyagoo fadhiya iyo iyagoo jiifaba waa kuwa makhluuqaadka rabbi samooyinka iyo cirka iyo waxaan ka fakaraya ee tafkiirkooda natiijada ka dhalatay maska daawa umba maya wayna natiija ka timaada rabbana ma khalaqta hada batila san'adan san'a ajiba inaytay sani' khabiro alimiin ka dambeeyo wayna garata koonkan sidoo yaala haddaad aragtaan computer yaro fiican maxaa garataan jabba sameeyay ama markan ba sameeyay tiraahdo Soomaha qolo cilmi law nisbaysan marka reer baadiyaha sameeyay hadii lagu yiraahdo ka waran aqbali maysid waayo waxaad rabtaa inaad tiraahdo cid khibrad iyo cilmi laba sameysay maxaad u malaynaysaa koonkan marka daalacato al-alim al-khabir miyaad ka dareemaynin al-aziz al-hakim yaana dareemaynin al-qawi ilaah subhanahu wa ta'ala sifaatkiisa oo dhan baad ka arkaysaa saadaradeed maxay ku gaarsiinaysaa inaad tiraahdo إله وحن ديل ما ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فغنا عذاب النار تنزيه يا رب يا بريدي سو دادكتو سيدا وقيد بالنبي محمد وحولي عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هو وحو صقنا بالنبي